بسم الله مقعي هو محمد نور محمد دكتور جامعة هرمود University Faculty of Computer Science Department of Information Technology IT horta horeyntii ilaah baa soo rageliyay inaan ku guuleysto deeqdan waxbarasho ee quruxda badan leh dabcan shirkaddan Hormuud Telecom inay bixiso deeq waxbarasho markii ugu horeysay waxa ay la wadaagay mid kamid ah macallimiintayda kadib xogta iyo tafaasiil dheeraada waxaan ka helay barta ay Facebook ku leedahay hay'adda Hormuud Salam Foundation oo xogta oo kamila ka helay anuguna saas aan ugu dhiiraday inaan barnaamijkan apply gareeyo waxa jiray caqabado badan oo inaan deeqdan waxbarasho soo apply gareeyo iga qabsaday oo dadku dhigeeda iga soo gaarayay caqabado runtii iga soo qaabilo waxay ahaayeen waxa jirta xogaa lex jecelo iyo garab meeshan la isku siinayo marka maxamedow nin meeshaas lu kulmay mid hide maxaa kugu qasbay inaad barnaamijkan gasho waxaan ogaaday xaqiiqada dhabta ee meesha ka jirtay waana mid aan ku guuleysan maantay oo aan ku ahay qof guuleysta ah horta dadkaas waxa aan leeyahay waa ii dambeynaysa laakiin waxaan ka hormarsanayaa barnaamijkaas horta waa barnaamij jira oo dadka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyay waana propaganda dadka Soomaaliyeed laga dhaadhiciyay oo wax jira looga dhigay marka waxaan oranayaa barnaamijkaas waa barnaamij ku saleysan tuhun iyo malabeena oo wax sal iyo raad toon aan lahayn dadka aaminsan marka 30 qof already waaba la liisigareeyay oo waaba leeyay waxaan kula talin lahaa aniga meesha tan cid keentay ma jirtay cid aan garanayo cid ay garanayso garab isiinaysa ma jirin taas ayaa tusaale kuugu filan marka waxaan dhihi lahaa nafsadaada aamin ilaahay ku tasho aqoonta iyo waxbarashada heerka aad leedahayna aamin ardayda dar-daaranka waxaan siin lahaa midka nafsadeeda aan kula dardaarmayay waxaan leeyahay waxa tusaale kuugu filan dadkii ka horeeyay aniga maanta kula hadlay waxaan leeyahay wax garab ama maaragtay la jeclayso lagu siiyay meesha tan ma jiro marka waxaan kaaga tagayaa nafsadaada aamin marka nafsadaada ku kalsoonaa waxaan tusaale kuugu filan anigu ba cid meeshan garab ugu keentay ma jiro ee ugu dayso waalidiinteena waxaan oran karaa runtii waxa farxad u ahayd inaan caqabad iyo culays maaliyadeed oo aad u weyn ka dajiyay maadaama waxbarashadu sida ay iska tahay caqabada ugu weyn ee waxbarasho qof ugu hari karan ay tahay maaliyad ama dhaqaalahaas maadaama aan ka baajiyay waalidiinteeda waxay ahaayeen farxad ay filanayeen juhdiga ay geliyeen aan ka mira dhaliyay runtii caqabad ay qabsaday marka aan jaamacadda galay ma jiro ilaahay ka sokoona waxa sabab ah dhihi kara damaanad qaad buuxda oo leysiyay ayaa waxay sabab u noqotay inaan caqabad maaliyadeed igu dhicin aan ahaan waligay leema dhihin lacagtii baalkii fiiga oo adar jarjiska iyo imtixaanaad wali leema weydiinin marka waxaan oran karaa ilaahay ka sokow waa deeq ilaahay na siiyay kadibna ay noo garatay shirkadda Hormuud